السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشركا وحبرشدا ويندوز 10. ما انت وحان عشركا كو ايجينا سيدا لو استعماله لو بدلو لو جوجيو ان اوغيسينتا ويندوز 10 و ويندوز نوتيفيكيشن ان نوتيفيكيشن كا وحاوية مسج يدا اما وحيالها اوغيسينتا او كمبيوتركا او كوسو ديريا او كسو بحا دانكا هوسي midigta taskbarka waxa way hadda meeshaan mouse ka saarayo waxa ii muuqata inaan haysto ogeysiin 12 ogeysiin waa 12 notifications marka sida loo joojiyo loo clear gareeyo ama loo yareeyo ama meelaha waxyaalaha applications ka soo diraya mid loo joojiyo si aad u samaysid meesha laga maamulo waxa weeye waxaad taabanaysaa start waxaad gujinaysaa settings waxaad tegaysaa system markaad tagtid waxaad taabanaysaa notifications marka notificationska ama ogeysiinta waxaa laga maamulaa meeshan qaybta ugu sareysa waxay ku oranaysaa get notifications from apps and other senders haddaad taas off ka dhigtid oo demisid معناها waxa way wax notifications ama wax ogeysiina computer kuma soo dirayo marka kulligeed waa joojisay hadaad hoos u socotid qaybahan kala duwan waxaad ku kala kan u horeeyo wuxuu oranayaa show notifications on the lock screen intaadan computerka gelin ka hor inay notificationka noocaana ama ogeysiinta noocaana uu computerka ku tuso macnaheedu waxa way adaanba password computerka gelin marka ugu horeysa lock screenka joogtid arkaysaa wuxuu notification ku soo diro sidoo kale waxaad arkaysaa show reminders incoming void calls on the lock screen sidoo kale wixii macnaha telefoon lagu soo diray oo void calls computerka soo galay sidoo kale waxaad arki kartaa adigan log in samayn oo passwordka gelin computer gudaha u gelin tan ku xigta waxa oranaysaa mid walba marka waa joojin kartaa danka calaamadan ka qaado macnaheedu waxay ahay hay tusin macnaha ogeysiinta intaan computerka passwordka gelin hay tusin callska notificationkooda intaan gelin computerka allow notifications to play soundka waa codka macnaha markii wax ku soo dhacaan inuu computerka cod daaro ogeysiina taasna halkaas ka joojin kartaa tan waxa way waxyaalaha la xiriira windowska oo updateska iyo maaragtay cusboonaysiinta iyo waxyaalaha macnaha operating systemka ku xiran computerka uu soo gelin ku ogeysiinayo iyadana hadda kolay arkayga on way uu soo galaya marka halkaas ka joojin kartaa waxyaalaha la xiriira waxbarashada ama inuu wax ku sheego wax ku soo jeediyo computerka oo wax cusub ama ku sheego ama waxyaalaha aad sameyn karido computerka uu sheego wax ku baro isaga computerka uu ku soo gudbiyo taasna inay ogeysiin noocaas kale ku soo dhacdo halkaas baad ka joojin kartaa isagana oo mid intaas oo qaybood ayuu u kala duwan yahay macnaha intaas oo qaybood halkaas ka joojin kartaa hoos haddaan u socono waxaan arkaynaa applications computerka kugu xiran oo marka ogeysiinta kugu soo diraya midkood marka mid ayaad u joojin kartaa oo hadda Cortana oo kale haddii wax macnaha ogeysiin ay u soo dirayso waxaana waa sound nuushidaya computerka lambarka bannerka noocaas oo kale oo hadda saaran oo circle-ka oo lambarka leh uu soo gelinaya marka haddaan rabo waan joojin karaa Cortana waxaan karaa Cortana wax ogeysiiso Cortana ka yimi haddaan rabin inaan arko kaligeedan dabin karaa iyo software-kana computerka xirano mid hadda sida hadda aragno Windows mail off weeye oo macnaha uu dansan yahay marka macnaheedu waxa weeye wax ogeysiina oo Windows mail ka imaanaya haduu email igu soo dhaco ma jiro ma soo galayo ogeysiinta marka waxaan sameynaynaa hadda application haddaan rabo emailka kale haddaad applicationka isaga aad gujisid waxaad sameyn kartaa kaas halkan waad ka joojin kartaa inuu wax ogeysiina ku soo diro waxaad joojin kartaa kale inuu notification banner uu soo qoro oo hoos uu ku soo qoro uu ku soo diro waxaad kaloo joojin kartaa inuu action centerka markaad taabatid gudihiisa halkan uu notificationka ku soo diro intaas waa joojin kartaa
waxaad kaloo oran kadhaa content markuu screenka lock yahay intaadan passwordka gelin ka hor on iyo off ka dhigi kadhaa notification. haddaan on ka dhigo micnaheeda waxa way intaanan computerka password gelin ayuu notificationka ama ogeysiinta isoo saaraya applicationkan ka yimi computerku. codka sidoo kale halkaana ka joojin kadhaa haddaa rabtid markii ogeysiin uu applicationkan waa outlookan hadda joogno markuu notification ama ogeysiin kuu soo diro inuu cod soo baxo. qaybahan hoose haddaan dhaho kan ugu koreeya meesha ugu koreysa ayuu kasoo saaraya notificationka, macnaha show at the top of the action center meesha ugu sareysa wixii applicationkan ka yimi soo saaraya. kan ka hor xigta waxay normalka waxa way kuwa kale oo dhan ula siman yahay oo markii ogeysiin uu kuu soo diro computerka waa u wada siman yihiin applicationku. haddaan dhaho high ka dhig kan macnaha kii normal ahaa uu kasoo kormaraya uu ka sarreynaya, kanna waa ugu koreynaya. haddaan kulli ka wada dhigo hadda tan ugu koreysa applicationada dhan macnaha markaa waxa weeye kulligood waa priority waa isku mid weeye. marka kan waxaan samayn karaa applicationka rabo inuu ogeysiinteeda hore iisoo maro kor iisoo maro mar walba waxaan ka dhigi karaa top, saasaan samayn karaa. marka haddaan dib u noqono hadda marka hal application afini kullina isku mid way, mid walba gaarkiisa ayaad u joojin kadhaa. marka haddaan notificationka fiirino oo hadda halkan waxaa iisoo taxmaya wixii ogeysiin uu computerka iisoo diray oo dhan. markaan rabo haddaan rabo inaan kulligood ka tirtiro meeshan waxaan taabanayaa clear all notifications, markaas kulligood uu ka baxaya. marka hadda notificationadan kala duwan iisoo sida aragtaan kanoo kale wuxuu ii sheegayaa software inuusan computerka uusan ku xirin uusan macnaha ku guuleysan inuu ku xiro downloads software wax la soo download gareeyay inay jireen waxyaalahaas waa wax computerka yimi. sidoo kale emails inay halkan oo kale outlook ka yimi ama meelo kale waxaas loo markaa ogeysiinta. haddaan dhaho clear all notifications micnaheeda waxa way markaas kulligood halkaasaan ka clear garaynaya. haddaan dhaho off ka dhig wax notification computerka markaa ma iisoo dirayo kulli wax dhan off uu ka dhigayaa. on haddaan ka dhigo sidaan hore u dulmaray xabad ayaan u bedeli karaa waxyaalaha notification. marka saas uun weeye halkaasaan ku joojinayaa ogeysiinta computerka sida loo joojiyo sida loo maamulo qaybaheeda kala duwan. insha allah casharkan ku xiga waxaan kaga hadli doonaa focus assist waa haddii ilaa idinkii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.